hadda waxaan u gudbahayaa wadaadka ka hadlay magaalada gaalkacyo ee weliba aflagaadada hadallada qaarkood anigaba toos igu saabsan yihiin soo gudbiyey. horta marka ugu horreysa hadalka uu bilaabay wuxuu ku bilaabay matalaad beena ayuu ku bilaabay. wuxuu yidhi meeshaan waxaan ku kulannay annagoo ah culamaa u diinkii magaalada gaalkacyood oo ahlu sunna waljamaaca ah. uuna sheegay inay yacni u kulmeen arrintii guraceer inay ka hadlaan oo markaa aragtida ay ka qabaanna markaa ay sheegaan. marka waxaa la yaab leh magaalada gaalkacyo aniga laftigay waa ka soo jeedaa. dadka maanta gaalkacyo la odhan karo waa culummadii magaalada gaalkacyoodna waa la yaqaana. raggaas hal qof oo ka midii kuma jirinin dadka ninkii hadalkaa ku dhawaaqahay meese uu ku soo shiriyey. oo weliba iyadoo ay joogaan culummo waaweyn oo xataa intaanu dhalan ama aanu dhoweyn wax daraasaynahay. markii la yidhaahda magaalo culamaa u diinkeedina macnaheedu waxa weeye waa culummada kutubaha akhriya masaa-ishana la weydiiya kuwaa wey. idlaaqa noocaasa markii la isticmaalo ee macnuhu noqon mahayo wadaad oo dhan qofka la yidhaahda ma ahanay. marka matalaada noocaasa ayaad marka ku dhawaaqday oo markaa waxaa tidhi annagoo ah culamaa u diinkii magaalada gaalkacyo ahlu sunna waljamaaca. waxaan kaloo meesha iiga dhex muuqan rag adiga da-aadaada ah oo aad inta badan isku badnaydeen ama dhanka koonfurta ha ka soo jeedeen ama dhanka waqooyiga ayaguna meeshii ma imaanin oo ima muuqan. arrintaasi marka waxay aniga iila muuqataa guruub adugu aad wadato oo laga yaabo inaad wax u laqbayso ama asxaabtaadaba inay yihiin. laakiin haddii laga dhiga anigu yaananba aqoonine raggaasi inay ku jiraan rag yacni waxbartay oo gadaal ka yimid oo culummo ah, markaana waxaa la rabaa tacbiirkaagu inuu noqdo annagoo ka mid ah culamaa u diinka ahlu sunna waljamaaca ee magaalada gaalkacyo. hadalka yacni matalaadda aad matalayso oo culummada ahlu sunna waljamaaca ee gaalkacyo adoo weliba sheegahaya rag hadlay oo adiga fakarkaa ka soo horjeeda inay jireen. waxay la tahay culummadaas gaalkacyo jooga ama tuulooyinka aad magacowday qaarkood ayaga ayay u taallaa matalaadda aad sheegtay haddii ay ka aamusahayaan iyo haddii ay ka hadlayaan. qodobka labaad waxaad dirtay tacsibaad dirtay sidii wadaadadii hore ayaa waxaa tidhi tacsibaan dirahayaa dadkii dhibaatooyinka kala bedelin meesha ay ku gaareen. haddaba tacsi aad dirtide intaan dhibaatadaasi dhicin ka hor maxaad samaysay? baaq nabadeed ma dirtay? ma tiri dagaal yuusan dhicin? ma tiri ha la heshiisiiyo? waa adigii guddoomiye ahlu sunna waljamaaca isku magacaabay ama lagugu magacaabe ma dhex tagtay oo inaad dadka isku keento oo adigu aad heshiisiisa ma samaysa? bal waxaad samaysay arrintaa cagsigeedii baad samaysay. waxaad yeeshay aniga kan ayaad hadal tanaagaa ii soo dirtay. nin dhallinyaraayoo mindhaawan calaaqaad idinka dhexeeyey ayaa inta la hadashay adigoo yacni xanaaqsan oo leh arrimahaas muxuu uga hadlay? muxuu gabayga jimcaalo jaamac u soo qaaday? seebuu arrimaha uga hadlay? anigu teleefonkiisa ma hayee yacni igu xidhiiri. marka waxaan aad iyo aad ula yaabay taytalka anigu waxa aan ka hadlahaya ama aanan ka hadlayn oo aad leedahoo aad ii xadaynaysaay meesha uu kaaga yimid. waan la yaabsanahay fudaydka intaa la eg iyo isla weynanka intaa la eg inaad aniga dad ii soo mariso adoo weliba doonahaya haddaad taleefonkayga hasho inaad toos adigoo arrintaa ku hadlahaya aad aniga i wacdo. wamaca daalika adigoo aniga iyo adiga waxaadda xiriiroo hore noga dhexeeyey iyo taleefon aad hore iyo gadaalmidna igu soo wacday aanu jirinin. taasoo marka tusinaysa dagaalkaa meesha ka dhacay inaad raalli ka ahay oo aad rabtay inay sidaa wax u dhacaan ee aadan u taagnayn inaad maslaxo ka shaqayso iyo dadkaa walaalaha dhiiggooda in la kala badbaadiyo. gabayga jimcaale
oo aad tiri gabayga Jimcaale maxaa loo soo qaaday kollayba sida ii muuqata waxaad u fahamtay gabaygaas Jimcaale bacdamaa yacni gabaygaa uu tiriyey dagaal laba beelood oo dhulkaa degan muxuu ahaa dhex maray macno kale inuu kuugu jirana waa dhici karta laakiin macnaha hore aqrabkaahi waa kaa oo marka aad u aragtay in gabal matalaad loo soo qaato oo laba beelood dhex maray inay wax khalada tahay ayadoo arrintaasi xataa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hortiisa ay ka dhacday oo xadiidkii bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen oo cayshe ay ka wariyeen oo ay tidhi abuubakar baa ii soo galay iyadoo laba gabdhood ay la joogaan oo ka mid ah ansaar gabdhahoodii ayagoo gabdhahaasi ay tirinahayaan gabay ama hees mid kastaba ka cabire ansaartu ay isku tiriyeen bucaatho maalinteedii dagaalkii bucaatho marka uu dhacay oo nebigu intaan madiine aanu imaanin ka hor oo aws iyo khasraj ay isku laayeen gabayadii dagaalkaa awgii la ysugu tiriyey marka waxay sheegtay aabbaheed inuu yidhi amazaamiiru shaydaani fii beyti rasuulillaahi malaahida shaydaanka miyaa nebiga gurigiisa lagu samaynaya inuu asaga horaray ay sheegtay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi faraha ka qaad yaa abaa bakrin ina likulli qawmin ciidan wa haadaa ciiduna qolo walba ay ciid bay leeyihiin kanna waa anaga ciiddeenni gabdhahan gabayadii dagaalada ka dhacay tirinahaya daah weliba gabdhuhu markaa hadda munaasabad gaar ah iyo tusaaley u samaynahayeen lama arag gabay aan cayi ku jirina macnihiisuu ahaa inuu tusaalaynahayo haddii la dagaalamo oo dagaal lala yimaado waxa dagaalkaa ka dhalan kara ama dagaalkaasi uu keenayo waa tii aan muxaadaradii labaad ku soo qaaday muxuu ahaa shicirkii uu bukhaari uu warinahayey ee shahar ibnu xawshab uu ka warinahayey oo markaa uu ka warramahayo uu lahaa kaanuu yastaxibuuna an yatamathaluu bi hadihi alabyaati cinda alfitan salaf waxay jeclaayeen inay tusaale ka dhigtaan beydyadan inay tusaale ka dhigtaan dagaalka yacni markii fitnadu ay timaado inay tusaale ka dhigtaan beedyadaasina waxa weeye dagaalka bilowgiisii ayay waxay ku shabahaysay gabar inana dagaalku markii uu dhacana gabadhiioo cajuusan noqotay oo kale ayay ku shabahaysay hadalkaagu marka waxaad moodaa inuu ka agdhow yahay taas laftigeeda wiil aan wax badan ogeyno igu qabsaday odhanahayay dumarkii buu caayayoo wuxuu xadiid ku sheegahayay buu sheegay marka waxa weeye waxyaalaha noocaas oo kale ah in matalaad loo soo qaato oo wax shareecadu ay qabto waxa weeye wax qabiil wax looga sheegahayo ma aha gabaygii aan soo qaaday iyo hadalkii anugu aan irina waaqacoodii mid dhacay buu noqday oo qof walba uu arkay waxaa ka mid ahaa hadalladii adugu aad tidhi dagaalku waa caqiido bay yidhaahdeen waayo qofka yidhi dagaalkaa ka dhacay iyo labada qayboodoo iska soo horjeeda ayaa caqiida ku dagaalamaysa ayaa yidhi caqiidada laga hadlayaa waxa weeye dadka hubka kan ku soo shubahayaa waxa ay aaminsan yihiin iyo hadallada qaarkood ka soo baxahaya taasaa waxaa la yidhi arrin caqiide ah oo dadkan culummada lagu baabiinahayo saf walba baa ka soo jeedeen weeye inaad marka adiga iyo wadaadadii hore hawshii oo dhanba inaad beddeshaan oo marka aad tidhaahdaan caqiidaa lagu sheegay oo laba qolo oo caqiida isu khilaafsan oo wahaabiyo iyo ahlu sunno ah hadalkaagi waxaa ka mid ahaa inaad tidhi dadkii yacni hadlay ummaddii dadkii way marin habaabiyeen oo markaa laba qaybood aad inta ka dhigtay qayb aad u soo qaadata aad tidhi faqad ixtamaluu buhtaana wa ithman mubiina oo kuwaasi danbay ka leeyihiin iyo dhibaatay ka rabaanoo masabid bay xambaareen adigoo masabidkii ugu horreeyey qaaday ee sheegay ayagana u tiiriyey inay yidhaahdeen dad caqiide iska soo horjeeda ayaa dagaalamaya oo buutaankaad sheegaysa adigu aad ku dhacday qaybna yacni aad u soo qaadatay oo anigu aan ka mid ahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu oo markaa weliba aad tidhi labada qaybood midda hore iyo middaan dambe laftigeeda
aayaddaa ilaahay kuma aanay dhaqmin ee war yacni qaybta dambe waxaa tidhi war yacni aysan hubin baa inta loo sheegay bay iska qaateen. horta waxaan kuu sheegahayaa anugu muxaadaraadkaas marka aan iclaaminahayay cid ogeyd ma jirinin. ragga duubay anigaa idhi meeshaan imaada. hataa markaan soo qaadahayay warka ninka Fahad Yaasiin la yidhaahdaa nin ayaga ka midoo ka warhaya ma aanu jirinin. marka taana waxa weeye waa arrin kale oo rajman bilghaybi la yidhaha aad samaynayso. dadkan degaanka ka soo jeedaay waxa degaanka ka socdaa waa la socdaan, taakay ula socdaan. adigoo muxuu ahaa fadhiya magaalada Gaalkacyo akhbaarta meeshaa ka imaanaysa kama ogid. dadka dabadaha joogaay waxyaalaha waqaa'ida ee xamar ka dhaca ayadoo dadka xamar in badan oo ka mida aanay ogeyn bay ayagu ogaadaan. maxaa yeele wax kastoo dhacahaya qalabkaasaa la soo gelinaya waana laga warhayaa oo dadku way ka warqabaan. dadku dad bay ku leeyihiin, carradu ehel bay ku leeyihiin, dad culumaa oo la xidhiidha ayay leeyihiin, way ka warqabaan wax alla waxa dhacahaya way ka warqabaan. arrintaas marka waxaa ku dartay inaad istintaaj ama istinbaad aad samayso oo aad tidhaahdo qolooyinkaa hadlay warkooda waxaa ka dhalanahaya hadalkooda in galmudug bidca ay tahay. waxaa ka dhalanahaya inay dadkii yacni bahalkii culummada ahaa iyo galmudug inay isku diradiraynahayaan. waxaa ka dhalanahaya inay dadka kale ahlu sunna oo meel walba jooga inay yacni ku boorinahayaan inay weeraraan oo loo soo duulaan tago galmudug. intaa oo dhani waa beeno aad samaynayso iyo buhtaan oo adiga maskaxdaada ku jira wey. haddana dad baa u soo qaadanaysa aayaddii ahayd faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina. waxaa kaloo ka mid a hadallada aad soo qaaday waxaa tidhi kuwa arrintan ka hadlahaya waxaa jira meelahooda bidca ayaa joogta kamana hadli karaan. kuwa ka hadlahaya qaarkood adigu ma isweydiisay hadda qolada aad taageerayso oo aad leedahay dowlad baan taageersanahay inay bidcadii fasaxeen oo marka ay yidhaahdeen meelahoodu marka waa fasax. awood ma u leedahay inaad tidhaahda aad fasaxdaane fakarkan takfiiriga ah oo gaalaysiinta ahi meelahaas waa in laga ilaaliyaa oo aan lagu dhiginin. shabaabka laga cabaadahaya haad cidka ka soo degay miyaa mase waa halaq dhulka hoostiisa ka soo baxay? soo ma aha fakarka wahaabiyada ah oo dhulka lagu faafinayo mid ka dhashay soo ma aha. haddii marka qolooyinkaad sheegayso dhulkooda wahaabiya ay gacanta ku haysay adugu marka ma waxaad rabtaan meesha hadda adinku aad joogtaan in wahaabiya gacanta ay ku hayso oo markaa wax sidaad uga ilaalin lahaydeen haba yaraatee inaan u dhaqaaqin. waxyaalahan marka hadda warka waa soo gabagabaynahayaa laba waxyaalood baan kusoo gabagabaynahaya. mid waxaa weeye ninka kan hadda wax weerarhaya oo hadda wadaadadii meesha yimid dagaalka yacni lagu qaaday iyo yaan lagu qaadinta laga hadlahayo yacni yaan la qaadin in la yidhaahda ka xumaa ee hadalladii la ogaageysanahayay. soo ma ogid wadaadadaas markii xabadda looga saaray magaalada Dhuusamareeb adoo ordahaya inaad tagtay oo markaas aad soo xambaarsato soo tolatay qamiiska ah inaad guddoomiyaha ahlu sunna wal jamaaca aad tahay oo aad ka xishoon weyday nimankii wadaadada ah ee meesha laga saaray ninkii macallinka ah ee ugu weynaa ee 80 jir dhaafay oo adiga iyo kuwa wax badan kaa weyna badan dhali kara lagana yaabo ilmihiisa qaarkood inay adiga ku dhalaan inay dhoweyn karaan inaad sheegato wixii asagu uu ku magacownaa oo aad tiraahdo ahlu sunna wal jamaaca ayaan guddoomiye u ah oo ragga hadda hadlahaya laftigoodii ee muxuu aha gurceel ka hadlahayay ayaa arrintaas ku magacaabeen. sababta adiga guddoomiyaha lagugu magacaabay oo ayaguna ay isaga leexiyeen ma ka fakerta waxa ay tahay? mase og tahay ururkan ahlu sunna wal jamaaca meesha lagu dhisay iyo meesha guddoomiyaashooda lagu dooranayay inay magaalada muqdisho ahaayeen? waana la socotaa ama ka soo qaybgal ama ka soo qaybgelin. kolleyba anugu kulamadii hadda aan
tegayna kaagama jeedinin waa sadhici kadha inta badan in la samayn jiray hadday suurtagal tahay inay isku yimaadaan dhulmadii duruqda oo waaweynaa meel kastaba inta looga yeero sidaana qof guddoomiye loogu magacaabo ee guddoomiyaha ahlusunna oo caasimadda ka dhici jiray aanay ahayn qolo yaroo meel isugu tagtay inay qof ku magacaabaan oo ay yidhaahdaan guddoomiyaha ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca waa magac ballaaran ee soomaaliya oo dhan dad degani ay ku sugan yihiin waayihii la bilaaboo la dhisay waxaa la isku dayi jiray in xataa dadka dhinacyadooda kala duwan oo dhanba inay guddigooda ka tirsanaadaan ma la socotaa magacaas maanta qof walba uu sheeganayo oo la leeyahay ahlusunna waljamaaca ninkii loo diroo magaca bixiya aniga inuu yahay ma la socota ma la socotaa ninkii ugu horreeyey oo sheekh maxamed xasan dirshe la oran jiray ahlusunna waljamaaca guddoomiyaha loogu magacaabay markii 91dii annagoo goor barqaa fadhina oo ragga meeshaa joogaa sheekh maxamed cali wacaysuu ka mid ahaa inuu aniga igu yiri waxaa lagaa rabaa hadafka ururka iyo magaca ururka oo weliba anigu aan damcay in aan ku celiyo bacdamaa nala kugu sheegay nin aqoon-yahana inuu yahay oo ina bal adigu soo qor laakiin waxaa noo muuqatay ninku nin suufiya oo wanaagsan buu ahaa macallin iskuulna waa ahaa laakiin aqoontiisu inay dhanka maadiga ay u badnayd anigii wuxuu yidhi ilaaba waa inaad soo qortaa 6 oo hadafka ahlusunnaa baan soo qoray magaca ahlusunna waljamaaca ninka ururka u bixiyey oo loo dirayna anigu ahaa hadafkiina waa la qaaday oo culummadii dhammaa oo ahlusunna waljamaaca waa la marsiiyey waana magaca maantay ahlusunna waljamaaca meel kastaba uu ka yeeraya ahlusunna waljamaaca kutubahana waa ku qoraa magaca qadiima oo ilaa xilliga asxaabu rasuulillaahi jira waa ahaa laakiin urur lagu magacaabo markii ugu horreeyey bay ahayd waana midka maanta wahabiyada ka keenay markay magaca soo qaadaan inay yacni yidhahaan dadka dhammaantii waa ahlusunna weliba muxuu ahaa aan maqalnay inay in badan yidhaahdaan ka qoomeeya inay yidhahdaan magacii wanaagsanaa baa nala kaga hormaray ayagoo magacyo badan la baxay oo itixaad la baxay oo ictisaam la baxay oo hebelow badan la baxay ee haddeer ayaga ku tahay waxay aad iyo aad uga xun yihiin iyadoo waagii hore haddii raggan dariiqadu ay wax sheegtaan anigu ama qaadiriyaan ahay iyo axmediyaan ahay iyo dariiqaan ahay iyo howlaha noocaasoo kale ay jireen laakiin magaca kan qaarigaaye ahlusunna waljamaaca weligoodba ay lahaayeen isticmaalkooda uu yaraa haddaba magacaasi waxa weeye waa magac weyn marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad magacaas ku qabatay wadaadka hadda inaad magaca kala wareegta aad ku tala gashay magacaas ciidan buu ku abaabulay shabaab buu kula dagaalamay degaankii reerkiisa uu deganaa buu nabadgelyadiisa ku sugay inaan fakarka wahaabiyada ah aan lagu faafin buu ka shaqeeyey keligiina ugama jeeda asaga iyo wax alla wixii ahlu sunna ahaa ee markaa hawsha la waday ee degaankaa joogay adigu qamiiskii marka waad qaadatee maxaad ku qabatay gaalkacyo wixii ka dhacaya maxaa ka qabatay midda hadda u dambaysa oo wisil ah ma ka hadashay wadaadada dagaalka u dhaqaaqay ka mid ma tahay mase gaalkacyo ayaad ku maadataayo waxaad iska ilaalisaa cod adigu aad leedahay iyo tilaabo aad leedahay inaad qaaddo adoo ka baqahaya cod iyo tilaabo midna inaad samayso adoo ka baqahaya inay ku ogaadaan nimanka shabaab la yidhaahdo marka adigoo xaalkaagu uu sidaa yahay inaad marka dadkaas wax qabtay aad hadalkaa u dirto waxaan marka ku xusuusinayaa kaama mudnayn hadda ka hor waxaa jiray nin gabyaa ahaa wadaadna ahaa oo ka soo goostay sayid maxamed cabdilla xasan ninkaas hobyuu yimid marka horena dadka wuxuu ahaa xardheere ka soo jeeda ayuu ahaa dadkii reer hobyaadkii baa la hadlo waxaa la yidhi war hebelow hadda gabyaana waa tahaye waa tii ninkai aad iskiirteene sayid maxamed gabay u tiri waxay ka dalbadeen gabay uu ku caayo wax uga sheegayo gabay buu tiriyo laakiin gabayga muxuu ku dhex yidhi afgaloofa uma dhiibi karo nin igayluwaad roone rag ayagu degaankoodii ka ceshaday shabaab oo kula dagaalamay
inaad maanta hadallada qaarkood aad u dirto adigoo waxaad dagaankaaga ka qabata aan la arag. waxaan ku soo gabagabaynayaa hadallada aniga aad ii soo dirtay oo aad hawada ii marsiisay, kuwa kale i soo gaaro oo ahaa muxuu arrintaa uga hadlay. haddaba anugu adiga kulama hadlinin. waxay ahayd haddii annagu aan bareero qabnay inaad bareerahaaga ka hadasho oo aad tidhaahdo wadaadadaasi waxay qabaan anigu cagsigeedii baan qabaa, laakiin inaad dadka culummada aad caydo oo aad wax ka sheegta ma ahayn. khaasatan anigu waxaan kuu sheegayaa hadal dambe oo haddaad aniga ii soo dirto oo aflagaadaa inaan sidaan si ka daran kuugu jawaabi doono ogow. anigu adigana kama hadlin, afaarahaagana ma aanan gelin. fudaydka qaarkeedna waxaan kugula talinhayaa iska dhaafo. masaladii qiblada meesha aad gaarsiisay waad is og tahay, oo maalintii iigu horreysay aan ka hadlo ay isoo gaartay rag anigu aan aqaano oo wiilasha ku agtooga ka mid ah inay bistoolada qaateen iyadoo mishaar inta la isu qabsaday in laysku dilo ay marayso. ma garat? marka waxaad yeelaysaa fudaydyada qaarkood iyo islaam weynada qaarkood faraha ka qaad, anigana ha ila imaanin. anigu arrintaan nin aqbala ma yihi. haddaad mar dambe hadal yacni tanaaga aad ii soo dirto si daran baan kugu jawaabi doonaa. wallahu subxaanahu wa tacaala